waxay rasmi hambalyo waxa maqalnay inaad ku laabatay wiilkad kala tagteen dadka saas ii soo wacayeen aniga ma soo maqlin familkayga kama maqlin waxay ka maqleen kaliya youtuber qaar oo fiyuski intii arimihii hore damay haddana rabaan inay dib u soo celiyaan oo arintii la soo cusboonaysiiyo ayaa keenay arintaas soo dadkii si akula qanciya garan waaye marka dambe youtube-kayga community-giisa kusoo qoro qoraal kale intii aragtay because xilligaas aydeed kama gaarin inaan soo duubo video because sayda busy u ahaa dukaankii alaab waxaas ku mashquulsanaa dadkii way kasii dareen familkayga soo wacaya familaa leeyahay nololaa leeyahay mustaqbalaa leeyahay infahanteen kulli qofaa jeclahay infahanteen dad ay ku tushanayo soo inaa suuqa iga xirxirtan horta number 1 waa ka xumaay xagga suuq xirka hadii la dhaho number 2 wax qalad inaa faafisiin aniga diyaar uma yihi rasmi ahaan waxaana diyaar ugu yahay aniga afkii ka soo bixin sidee aniga magaalada iigu galin kartiin waa qalad okay aniga qof isku laabanay oo ilaahay abuurtay ma jirto sababtoo ah shalay wixii loo kala tagaa meesha yaalo afkarna ay qalasa umurmaahay raal noqda waxaana meesha ka maqneen shalay xumaantii loo kala tagay because shalay waa dad wada joogaa lahaa xumaan ay maatay waa la kala tagay so maanta isku soo noqoshada wax keenaysa malaha inkastoo la dhaho biniaadanka markii la kala fogaado ama markii la kala tago ayaa qofka kale inuu wanaagsan yahay ama qofka kale inuu xun yahay la ogaan jiray laakiin aniga ahaan rasmi so anigoo heli karo inaan dhar cusub xirto anigoo nolol cusub samaysan karo maxaa dib ii sii celinaya waa qalad soo noloshaada mar haddaa qaldantid mar labaadka waxay ku noqonaysaa waaye arag ee lama noqdo doqon mar waxaa la dhahay mar idage mar labaad ima dago soo taasoo kamicnaheeda ay tahay mar haddaan qaldamo lagaba yaabo mar labaad inaan qaldamo inkastoo waxa kasto ee xag ilaahay ka qoran yihiin haddana waxaas la faafinayo wax ilaahay abuurto oo ka jirta malahan fahanteen ani haddaan rabo inaan views idinku raadsado xilliga aad bilowdeen hargeysa kasoo baxaya youtube-leyda qaarkood maaha youtube-ka dhan maahan dadka dhan maahan ilaa hadda videoyasa maalinba hal idinka sameynaya youtube-ka ma maqnaadeenba youtube-ka waxaa uga maqnaa buuqaas iyo stresskaas iyo waxaas iyo inaan ka nasto insha allah waxaa jeclaa inaan kusoo laabto anigoo horumarkayga waxayga walba ii dhamaadeen alxamdulilah haddana wax kastoo noloshayda ku saabsanaa iyo wax kastoo noloshayda ka horumarin lahaa waa samaystay ilaahay ha ii barakeeyo wax kasta xag ilaahay ka qoran yihiin koley noloshaas iska marka aan wax kale idima dhahay waxaa idin leeyahay waxay tahay aan kala xishoono anigoo arki karo nolol cusub anigoo arkaayo inaan horumar cusub samaysto lagama yaabo inaan dib u laabto wax kasta xag alla ayagii ka qoran yihiin haddana aniga niyadeyda kuma jirto kumana tala jiri inaan dib u laabto lagamana yaabo inaan dib u laabto marka waxa aad faafinaysiin waa fake news joojiya inta oo runta u malaynaysay waxaas waa been wax ka jira malahan inta faafisan waxaan leeyahay anigoo nool idima faafin kartiin been sababtoo aniga soo indha cadeynayo taagan marka waxaan ii sheegayaa waxay tahay yaanan laisku xumaanin yaanan mar dambe la arkin maxaa la jira marka la xamleynaa rasmi qoyso dagaal ku jirto inay soo fariisan doonto haddii la kala xishoon waayo dad badan oo arkay dhahaye youtube-ka ii hiilinayo lahaa rasmiyo arrintaas been waaye wax ka jira malahan iyo kuwa kusoo indha cadeynayaba nimcaan hilaac ayaa arintaas heshiiskaas iyo arintaas kale horta nimcaan hilaac halkan aan ka salaamayaa waa wiil walaalkay ah fanaankayga ah fan iiga weyn aan xushmad u haayo markasta madaxa ii saaran nimcaan aniga asaga wanaag muushi wax xumaa naga dhexeeyo oo ilaah abuurte ma jirto infahanteen wiilkaa kala dhamaanana asagana sidoo kale waa dad waxaa hayn shalay nolol wadaagay maantana kala tagaanahay wax kaloo iskugu imaanayna maanta ma jirto midda kale aan ii sheegaya waxa badanaa waxaa ku arkaa tiktoka aniga waa ku jiraa tiktoka dadka oo maxaa la jira isticmaalo kamid ahay badanaa waxaa arkaa waxyaalo qaldan sida haday noqoto
qabiilada caynayo niman weyn arkaa inay sawiradeedii soo qaataan iyo sawirka wiilkaas islaamiyada kala dhamaane ku hayo samaroon waa maxaa la dhahaa gun saan waa ogaadeen waa gun saan qabiilada no waxaas muhiimada maahan samaroon iyo ogaadeen ama samaroon dhan ima qabin ma ogtihiin waxay qabeen hal shaqsi Somaliland dhan ima qabin waxay qabeen hal shaqsi soo ina wadan dhan afka saaratiin no waa qalad aniga Somaliland madaxaas ii saaran yihiin samaroona ku soo haray ina afka saartiin waa qalad sababtoo madaxaas ii saaran yihiin waa dad Soomaaliyeed oo walaaladay ah wax xumaan oo naga dhaxeeyo Ilaahay abuurta ma jirto waxa ku soo haray ogaadeen alxamdulillah ana ka dhashtay kulay caay malahan qabiil kastana waan jecelahay oo Soomaaliyeed oo aniga because waxay gabar Soomaaliyeed markii qabiil laga soo tago intaas qabiilka waxa uga hadlan waxay tahay kulay dadka TikTok qabiilka wareejinaya marna samaroon caynaya marna ogaadeenka way arki doonaan aniga videogayga samaroon ani Muuse qabin ogaadeenna wiilkaas Muuse qabin waxaas qayb waa ani wiilkaas waxa kala dhamaano waa ani wiilkaas soo labada qabiil afka isku galinina inta saniga tagaya waxaan leeyahay sidaas iyo nabad galiyo YouTube kan hadii aan maxaa jiray ka maqneed ama aad hore u arkin YouTube kayga rasmireys fadlan like share subscribe inta hal dhaafin inshallah video soo soo galnaya haduu alla idmo waa iska mashquulsanaa gabdhaha soo wadinaya dukaankaaga rasmiyeey xarig jar ma u sameeyeen miya intuuna ku yaala aan dukaankayga xarig jar ma sameeyeen sababtoo ah ina xarig iyo cake iyo balaayo la jaro dad iyo balaayo isdaba ordayaan waxa ka jeclaaday inaan dhowr wadaad ka xesto quraan saaro wadaadaha ducadooda siiyo aniga iyo gurigayga iyo dukaankayga quraan saaro because waxa sabarku waa xarig la jaray iyo cake la wareejinayo inay faa'iido ku jirto uma maleynayo soo dukaanku uu furan yahay kareema cosmetic ayuu waxa karabtiin waa helaysiin dharkii gabdhaha libiska haday noqoto cabaayado kabo boorsooyin everything ayadana sidoo kale waa helaysiin wuxuu ku yaalaa Islii inta Islii taqaano Islii dadka kor waa qaanan Islii mogtaa on gudaha si kaseen Islii kasoo wuxuu ku yaalaa jaamka sako wuxuu ku yaalaa Alhaq Plaza agtiisa Sarja iyo Alhaq Plaza marka joogtid koona santa yaalaa Sarja soo yar moodaysa den koona santa yaalaa first floor ku yaalaa dukaan numberkana waa F24 sidaas ay balanteen noo aanaysa sidaas iyo nabadgelyo guys love you waan jecelahay